Cabdullaahi Cali Aadan waa gudoomiyaha guud ee xarada qaxootiga ee Dhagaxley waxaana uu fariin u diray shacabka ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee Dadaab gaar ahaan kuwa ku sugan xarada qaxootiga ee Dhagaxley waxa uu ka codsaday inay la shaqeeyaan dadka haatan tirkoobka ka wadaan qayb ka mid ah xeryaha qaxootiga ee Dadaab dadka ayaa inta badan hadal hayeen tirkoobka waxayna sheegayeen qofkii qaxooti tirkoob galo in kaarkiisa la dul saari doono sharciga dalkan Kenya ee kibaandaha waa kan gudoomiyaha guud ee xarada qaxootiga ee Dhagaxley oo bulshada u sharaxayo waxyaabaha uu ka dhigan yahay tirkoobka waxa kan in sheego waxa jira tirkoobka Kenya toban sano hal mar baa la sameeyaa toban sano kadib hal mar baa la sameeyaa tirkoobka hadda uu socdaa qof kastoo Kenyan ama qaxooti ah waa la tirkoobaya qoys kasta waa loo tagay waa la tirkoobaya tirkoobkaas macnaha kaarna kaarna kuma kordhinay kaliya waxa la qof kasta oo xuduudda Kenya ku dhex jira in loo ogaado inta baa muhiim ah waxay muhiim u tahay dadka Kenya jooga anaga aan ka midnahay isbedel fara badan baa imaan doona waxa laga yaabaa anaga naftaan inaan Kenya dhaxgalna laga yaabaa dad fara badan anaga nolol sharciga jira dantii sharciga qoranaya kii kaar la kaarkiisu qoranaya kii ku sugaysto heeganaya nin kasta asaga wixii u madax banaan laakiinse laguma dhahay dhow qaxootiga ma Kenya baa taluunay xisaabti bas loo baahan taasna dadka inay ogaadaan dad fara badan diiday baa la sheegay hadaa diido hadhow wax ka soo ku imaan kara marka hadiidina tirkoobka la meesha joogto waa Kenya wax la sameeyay waa Kenya marka maadaama Kenya aan ku dhaxnoolnahay wixii nololkeen waa inaan qabo inaan diiday hadaa diido labadii qoys oo dariska hadii la soo tirko adiga aad diido su'aal baa ku imaan karta maxaad u diid barto marka waxaan rabaa dadkaan u sheegayaa tirkoobka Kenya ay wadato UNHCR ma wadato qolo kale ma wadato dawladda wadanka iskala dawladta qofka sakaar hal iyo lahaanin daahanaha aado hadda ha soo gal dhamaan waa la tirkoobaya marka intaas inaad ogaataan waan rabaa annaga waan la shaqeynayna gudoomiyaasha in sectionada leaders chairman cheled dhamaan waan la shaqeynayna dadka tirkoobkooda idinku habeenimo gudaha idinku imaan doona marka dib gudaha idinku imaado wax si qaldan ha warkin soo dhaweey akhbaaraadkiin haysataan u sheeg 10 sano kadib hal mar ayaa la keenaa guud ahaanba dalkan Kenya tirkoobka ma ahan markii ugu horeysay tirkoob sidan oo kale uu ku bilaabo dalkan Kenya Xasan Kaafi Horse TV xeryaha qaxootiga Dadaab